Qandhadu waxay timaadaa marka habka ficil-celinta difaaca jirka ee ka dhanka ah nooleyaasha ilma-qabatada ah sida fayrasyada iyo bakteeriyada ay siyaado. Mararka qaarkood waxay qandhadu timaadaa markii uu walwal ku hayo ama dhul kale aad tagto oo deegaanku kugu cusub yahay. In difaaca jirka isaga isweeraro sida xanuunka gout iyo arthritis, iyo inaad tallaalo kala duwan qaadato. Haddaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa habka dabiiciga ah ee aad qandhada isaga jabin karto. Biyo kulul ama qabow. Waxaa habboon inaad ku qubaysato biyo kulul si xanuunka iyo qandhada siyaadaysa kaaga jabto. Laakiin hadday qandhadu tahay mid aad u kulul, waxaa habboon inaad ku qubaysato biyo qabow. Basbaaska gaduudan. Basbaaskan oo aad cuntada ku darsato markay qandhadu ku hayso wuxuu keenaa in dhidid kaa yimaado, qandhaduna si degdeg ah kaaga jabto. Waxaa basbaaskan ku jira maadada capsaicin oo kululeysa unugyada jirka. Inaad biyo kulul geliso lugaha. Habkan ayaa ah mid caan ah oo dad badan ay isticmaalaan markay qandho badan qabato. Waxaad lugahaaga dhex gelinaysaa biyo aad u qandacisay, una daa muddo gaaban. Kadib waxaad dhex gelinaysaa sharabaadyo aad biyo qabow soo dhex dhigtay, kadibna aad maroojisay, una daa muddo. Biidhnillaah, qandhadu waa kaa jabaysaa.